kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo waqti walba oo ay idin tahay oo wacan halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa channelka Siryacaad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh waad ku mahadsan tahay la joogaaga ee fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay ay tahay markii kugu horeysa aad soo marto ama aad nala kulantaa aad soo booqato waxa ka codsanaynaa inaad subscribe saarto kambaleelkana furato si aad mar walba u hesho muuqaaladii ugu dambeeyaan oo soo galino haddii aad naga mid ahayd oo aad nala joogtayna waxaan ku leenahay kun jeer ayaad mahadsan tahay videogan like garee si share garee haddii aad ka heshid mar walba channelka astaamaha lagu garto ama lagu yaqaano waa wanaaga iyo samaka talinta dadka qaar siday doonaan iyaga channelka ha u arkaan waxa jirta mowduucyo mar walba aad ii xiiso geliyo kuwa markii aan helana waxaan jeclahay ama aan ku fikiraa in aan idin la wadaago si aan mar walba annaga u noqono dad positive ah la fahmi karo halka ay u socdaan iyo halka ay ka socdaan maanta waxaan idin hayaa run ahaantii oo aan wadaagi doonaa oo ah barnaamijkeena maxaa cusub waxa cusub in fanaaniinta run ahaantii aan mar walba inta ugu badan mowduucyada aan ku soo qaato ana jeclahay in ay noqdaan dadka hayaanka oo ah ee lagu daydo Soomaali in ay ku dayato hadii ay fanaaniin yihiin oo aan jeclahay ayaa waxa ay kala yihiin labada fanaan ee maanta runta marka la sheego hormuudka u ah ragga yani maahan kuwa qurba joogta maahan ee kuwa magaalada ku sugan waa dadka kaliya ee hormuudka aan dhihi karno ama inay ku daydaan waa la mudan yahay waana Sharma Boy iyo fanaanka kale ee Maslax Mideeye labada fanaan run ahaantii mar walba waxa ay ka run sheegaan noloshooda xaqiiqda ah iyo sida ay isku arkaan iyo sida uu xaalkoodii mar walba uu yahay waana arin aniga ahaan farxad galiyo markii aan arko dadka qaar waxa laga yaabaa inuusan farxad gelinin laakiin anigu markii aan arkaa aad baan ugu farxaa oo waxaan aad u jeclaystaa hab dhaqanka iyo sida iskula dhaqmayaan maanta waxaan idin hayaa video run ahaantii markii aad aragtaan waxa soo duubay Maslax Mideeye ulajeedka oo Maslax Mideeye u soo duubay videoga waxa uu ahaa in uu dadka kaga qosliyo laakiin anigu arrinka meesha iga soo baxay wuu ka duwan yahay arrinka uu u soo duubay Maslax Mideeye laakiin maxaan kaga taageersanahay maxaana ka soo dhax saari doonaa maxaasi iga dhax muuqdo barnaamijkeena maxaa cusub ayaan idinku dhax wadaagi doonaa ama ku wada wadaagi doonaa idinkana sida ay aragtidiina idinla tahay waad nala wadaagi doontaan xagga oo kala jeedana waad soo arki doontaan bal marka ugu horeyso videoga daawasho wacan ku soo dhawaada akaademiyada Scarborough lagu soo xiriyo aaway gabdhiga cabanay dhahay rag la'aan jirta soo dhawaada naajiro garis dawada sidaad soo aragteen Maslax Mideeye waxa uu ula jeeday hablaha yiraahdo mar walbaba wiilasha Soomaaliyeed meeday iyo wiilalna guursado annaga ma haysano ayuu u jawaabayo wuxuu leeyahay intaan qof oo meesha isugu timid waa iskaablo oo waxba ma hayaan idinkana halkaas ayaad ka cataabaysaan ee dadkan u soo jaba ayuu ula jeedaa hadaba marka mowduuca sida anigu aan u arkay ama sida uu ii xiiso galiyay iyo waxyaabaha aan ku jeclaystay in aan idin la wadaago ayaan idinka dabageenaya midka taagnaa waa Maslax Mideeye waa wada taqaanaan ka kale ku xigay anu ma aqaano ka saddexaad laakiin waa deeq darajo oo aad wada taqaanaan Xayaat Kaajal ayaa xaaskiisa ah maantana waxa uu la joogaa ama uu waqti la qaadanaya ama uu nolol oo ku qanacsan yahay oo kula jira saaxiibkii Sharma Boy iyo Maslax Mideeye haddii aad soo dhaafto waxa jiray qof isagana meesha duubnaa oo jiifay codkiisana wuu idin soo gaarayay oo markii lagu qabanayay wuu hadlayay waana Sharma Boy isagana xaajiyad ayuu leeyahay oo milyuumaanka waa wada taqaanaan dhammaantiinba hadaba ragga sidaas ah waxa ay ka run sheegeen ama ay runta ka sheegeen saaxiibtinimada waxa ay tahay iyo heerka maanta ay taagan tahay iyo dadka qaar sida ay u arkaan saaxiibtinimada in ay ka duwan tahay markaan idin leeyahay hormuud ayay u yihiin dadka waxaan ula jeedaa intaas oo qof laba qof kamid ah waa xaasley sida aad
aad ka wada warhaysaan labada kale anuu ma garanayo laakiin laba waa xaasley waxa ay awoodi lahaayeen ama awoodi karayeen in ay xaasaskoodii ay la tagaan ama ay u tagaan oo ay waqtiga la qaataan ama ay la seexdaan laakiin waxay si dhab ah uga run sheegayaan ama si dhab ah ay u cadeynayaan in ay yihiin dad iyaga isku qanacsan oo aanan dhib isku arkinin noloshana mar walbo aad qaanic tahay waa mar walbo aad noloshaada horumarka iyo guusha aad jeceshahay aad ku tilaabsan karaysid maxay tahay marka sababta mar walbaba ay Soomaalida ay u jecel yihiin tafaraaruqa kala go'a kala fogaanshiyaha iyo in aanan waxba la isku qabanin oo ay dadka isku noqdaan cadow iyaga isku dhow waxaa mar la soo suuq galiyay in uu Sharma Boy marka uu dhibka ku jiray ama xaaladda uu ku jiray oo gabadha gaariga ay la rogmaday in uu maslax mideeyay magaalada kaga tagay oo uu sidaa ku cidleeyay marka horena ay danta ay wadaagayeen ay ahayd oo kaliya in ay showada isla qabtaan laakiin wixii dhib ah ay isaga baxsanayaan arrinkaasi run ahaantii been cad ayuu ahaa sida aad ka wada warhaysaan waan ka hadlay oo mowduucayga uu ka mid ahaa oo waxaan sheegay in arrinkaasi uu yahay been iyo mid aanan sal iyo raad midna aanan lahayn waayo Sharma Boy maalinta ay isla soo galeen magaalada isaga iyo maslax mideeye wixii ka dambeeyay oo dhan maslax mideeye kama uu bixin magaalada ilaa imaantadan la taagan yahay maslaxa waxa ay wada joogeen ama uu la joogay walaalkii Sharma Boy waana sida uu ballan qaaday hadda ka hor sida aad ka warhaysiin in ilaa iyo ay kala dhintaan mooyaane in aynan si kale ay ku kala harayaan adduunyada dusheeda inaysan jirin saaxiibtinimona waa taa ayaana horumar lagu gaaraa taa ayaana sababi karso hadafka iyo hiigsiga ay dadka leeyihiin in ay gaaraan laakiin hadii aad aamintid in hadii aad kaliga noolaatid aad gaari karaysid hadafyada noloshaada way adag tahay hadii xitaa ay dhacdo in aad ka garun sheegtid ama aad gaartid hadafka nolosha aad ka leedahay waa mar aad jabtay oo baaday oo aadan ku raaxaysanaynin laakiin markii aad haysato garab qofka doona ha noqdo muhiimadda ma ahan in nin ay wada saaxiibi karaan oo kaliya qofka doona ha noqdo hadii aad heshid qof nolosha kugu caawiyo ama ku garab istaago oo ku muujiyo garab istaag xaqiiq weeyaan waxaad gaari ama aad gaaraysaa horumar iyo nolosha meesha aad hiigsanaysid mar walbana waa mid ugu wanaagsan oo ay dadka ku horumari karaan bulsho walba intay bulshooyinka kale isaga dhow yihiin ayay horumarkana isaga dhow yihiin laakiin hadii mid Kemba meel intuu soo ooto haduu yiraahdo anigu fanaan baanahay kaliye ayaana hooshayda iyo hadaladeeda wadanay haduu yiraahdo waxaad ogaataa kaliga inta ku sacbin kartaa way ka badan tahay markii aad jamactihiin inta ku sacbinaysa waxaan rajaynayaa mar walba in aad ka fiirisid dhinaca wanaaga hadii aad wanaaga ka fiirisid waxa aad gaaraysaa ama aad ku tilaabsanaysaa horumarka aad raadinaysid xitaa adigu inaad raadisid markaas uma baahanaysid ee isaga ayaa isagoo ku raadinayo ku iman doono marka waxaad ku dadaashaan hadii aad been maleynaysaana noloshooda iyo xayaatadooda dib u raaca deeq darajo maanta waxa uu la sugan yahay walaalkii waxa ayna ka run sheegayaan dhammaan dhalinyaradaas aad wada arkaysaan in ay noloshooda xaqiiq iyo walaaltinimo ay ku dhisan tahay mar walbana waxaan rajaynayaa Soomaali meel walba oo caalamka ay ka joogto in ay guul ku noolaato iyo gobonnimo iyo isjacayl inay ku noolaadaan aad baad u mahadsantiin reer Siriyaad barnaamijkeena maxaa cusubna waa ka idin soo gudbiya maanta wixii aad ka leedahay hal iyo laba commentiga nagula wadaag inta fiidiyoga mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaani ilaahay sarag dambe oo xiiso leh